بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان أصحابتك وحران كنالك وانا دا قويسك كسو دوادا وانا دا حلقال واه باسمها قويسك. صباح وناكسن جمعة وناكسن ما انت يعني إلوبين إنا نبادلنو صلي النبي صلى الله عليه وسلم سورة الكهف أنا أقرن إن شاء الله تاوى خصوصية راني ذكر تلقى موضوع أنا ما انت وحوي هاي محاكينا بربرك قويسك محاكينا بربرك قويسك qodobo badan ayaa jiro oo sababa burburka qoyska. Maanta waxaan jeclahay inaan soo koobo qodobadeeda si muuqaalada xiga aan si faahfaahsan uga hadlo insha Allah. Qodobka koowaad wuxuu yahay kalsooni la'aanta. Kalsooni la'aantu waxay sababtaa burburka qoyska. Jiritaanka qoyska waxaa aasaas u ah kalsoonida. Wax walba oo khilaaf ka dhaliya waa in qofka kale si kalsooni leh u weydiiyaa. Maxaa yeelay labada qof haddii kala aamusaan waxaa imaanaya shaki, waxaa imaanaya cuqdad, waxaa imaanaya qof kale inuu kasii fogaado. maxaa yeelay labada qof waxaa loo baahan yahay in si niyad ah, si qalbiyan ah ay wax isku weydiiyaan, si kalsooni leh ay qof kale wixii jira ama shaki geliya ama sababa khilaaf ama kala fogaansho keena in qof kale weydiiyaa. taasi waxay keenaysaa in reerku si wada jir ah, si xasilooni ah ay u wada noolaadaan. si kalsooni buuxa loo helo waa in lamaanuhu qofka kale uu weydiiyaa wixii sababay arrinta taagan. haddii khilaaf tahay, haddii shaki yahay, haddii isfaham la'aan ay jirto. qodobkaas waa muhiim. Sigoo faahfaahsan insha Allah waan soo sharixi doonaa iyo waxyaabaha qaabka loo xallin karo si kalsoonida loo beeri karo. qodobka labaad wuxuu yahay isfaham la'aanta. isfaham la'aanta waxaan ka soo hadalnay qodobka koowaad oo kalsooni darada ah, kalsooni la'aanta ah. ayadoo labada qofood lamaanaha oo tirsan kalsooni jirin hadday wada hadlaan oo isfaham daro imaado, khilaafkii ama wixii jira way sii xoogeysanayaan, way sii balaaranayaan. maxaa yeelay isfahamku waa shay qaali ah. labada qof hadday isku kalsoon yihiin way fududahay inay isfahmaan. laakiin hadday kalsooni meesha oolin qof kale wax uu sheego ma ilaahan inuu qofkan haddii isfahmi dari ay jirto inuu qofkan fahmi karo. kalsoonidu waxay sababaysaa hadduu isfahamku wanaagsan yahay ama qofkan kalsooni uu jiro in dhaqsi leh qofkan lagu fahmo. qofkan tusaale arrin baa jirto oo khilaaf ah, qofkan kalsooni ayuu kugu qabaa, arrinkii qofka si degan ayuu u sheegay, kalsooni ayaa beerneed sama way fududahay markaa inuu qofka aqbalo. maxaa yeelay isfahamku labada qof markay kalsooni jirto way fududahay in labada qof ay isfahmaan. laakiin haddaysan kalsooni jirin isfaham ma imaan karo. labada qodob way isku xiran yihiin. marka lamaanuhu hadduuna isfaham jirin waxaa imaan kara in burbur qoyska ayaa imaan kara, inuu qoyska burbura ayaa imaan kara, in la kala fogaado ayaa imaan karta, in la isfahmi waayo waxay sababaysaa burburka qoyska. sidaas darteed muhiim waxaa ah in lamaanahan oo qof kala uu fahmaa dabeecadihiisa, uu fahmaa waxyaabaha uu neceb yahay, uu fahmaa waxyaabaha uu jecel yahay, uu fahmaa waxyaabaha qofkan uu daneynayo, waxyaabaha dhibi kara, waxyaabaha uu ku faraxsan yahay. khilaafka isfaham darada ayaa keena. khilaafka waxaa dhaliyay inay isfahmi waayaan. qodobkaasina waa qodob muhiim ah. qodobka saddexaad wuxuu yahay sirta oo la faafiya. taan waa khatar cadiim, waa khatar weyn. maxaa yeelay sirta qoyska waa waajib in la qariyaa. sirta waa muhiim in la qariyaa. sirta oo faafta waxaa badanaya burburka qoyska. maxaa yeelay qofkan hadduu meel wax ka soo maqlo wuxuu is leeyahay maxay tahay sababta oo qofkan u gudbiyey. sidaas darteeda sirta labada qof ee lamaanaha ee qoyska soojada waa inay wada qariyaan. sirtan in la xafidaan nabiga ayaa noo sheegay sallallahu alayhi wasallam. marka sirta waa muhiim in la xafidaa oo la qariyaa. lamaanaha wixii ka dhexdhacay, wixii khilaafaada, wixii arrimahooda dhan ku saabsan qoyskooda waa axwaal sirriya. axwaasha sirta haddii labada qof ay xafidaan waxaa ammaan noqonaya labada qof kalsoonidooda. qoyska ayaa wuxuu noqonayaa meel sirta lagu qariyo. qodobka afaraad wuxuu yahay in khilaafka lagu xaliyaa si degdeg ah. khilaafka oo degdeg lagu xaliyo
waxay sababaysaa in lamaanuhu isu soo dhawaadaan, in lamaanuhu khilaafka iyo shaydaankii soo dhexgeli lahaa uu halkaa ka baxo, in dadkii cadowga ahaa ee hurinayay dabka ay meesha ka baxaan. sidaas darteeda waxaa loo baahan yahay in khilaaf hadduu dhaco la wada fariisto. maxaa keenay khilaafka la isweydiiyo. mawduuc hore ayaa jiray oo aan ugu soo hadle oo ku jira kanaalka, insha allah si fiican u taabo haddii aad la socotin oo aad la socon muuqaaladeeda. khilaafka waa in si degdega loo xaliya, waa in laga fariistaa, waa in la isweydiiyaa wax keene, waa in laga baaraan degaa waxyaabaha sababi kara, cashar in laga qaataa. khilaafka oo la xaliyo, kalsoonida oo la xoojiyo, sirta oo la qariyo, khilaafka oo si degdega loo xaliyo. afartaas qodob insha allah wax badan ayay ka tari doontaa, waxayna sababtaa afartaas oo isbiirsaday oo isu tegay oo aan waxba laga qaban, oo aan si degan khilaaf loo xalin, oo kalsoonida la beerin, oo sirta la qarinin, wax waliba oo maxaa la dhahaa ku saabsan khilaafkan, in haddii aan la sameynin waxay sababaysaa in burburka qoyska u yimaado. sidaas darteeda mawduuceena oo dheeraaday waxaan jeclahay insha allah inaan intaan kusoo koobo. muuqaaladeena waxay yihiin kuwa ayaga oo dhan aan uga hadli doono wax ku saabsan arrimaha qoyska. intaan ayaan kusoo koobaya insha allah. muuqaalka xiga ayaa inoo balana. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.